ورجع تعال لو أهم صومرتي حسوس أو اللي بعطى ما صومرتي والله حتى وحياة السبب حتى أني أسجع إن ما رحنا يكال جارتو سيدو قلبي يسوينيت أرنتان أو تعالك. السلام عليكم أصحابتك وحرم صباح وفيشيال صولا وشو عن شيك أيام ما استيرا نقول لي سولا محل عسوا الأجرات درك عداك وقرحوك على دايمان والله بالله ويكسبوا كنا درك عداك وقرح بدن تمام سيبو يا إذا عصبة الأركوايا إذا بدروا في سكي ساعة دا يسلا صعدة أيام ما قبلنا يستركع وحوا ودنا يا صح خلوي بيها ما شاء الله البحي وفيروس بيها وأنا جوارسة أصحابي وحوا مدة كلام قنين وأسكير مشغولي وصولا بني ما أنتوا حرنا إنك هذا موضوع مهم الشوكولاتة محا بس واقصبر لا بيها واقصبر لا بيها شوكولاتة وأما ما عندي على ما يا بسيكيو وقعنتك كويس تدري انت رياكشن بعينيسا ما لقى حد عمل إنها عندك عبصودي حياتك بجعلين والله مكرنا فرحة ونسية شوكولاتك وحي اسك داد عيام هذيك كان معان وحاول بنا هذيك ايدكم معاي فرحة كيرلا شوكولاتك فاكر ماشي marka maanta mowduuc muhiim ah oo social media ayaamahan haysta baarna inaan ka hadalno ani jeeg waxa ka ognahay waa qisada walaalkeen Jamaal Jacelo weyn marka waxaan rabnaa inaan qisadaas ka hadalno marka waa bilaaweynaa okay بدنا جمال السوشيال ميديا وحياة الجوجي وهذا السحر وقرأ لي قلبي وقرأ وعملي جاهنا وقرأي كأنا السحر كذا كدينا فهذا يلو مجلسها سبب كيفتي جاهل أوي إن السوشيال ميديا وقنا أترجع والسوشيال ميديا هم بيعرض هكذا إنترنت سوى لكن أود قلبي على عقاري أبنسي ودوسي وحنا كنا نشكر الله وقلبي مجلس هذا قصة جاء حين صوتي وصوت الشيء نسيب وأرسلك أدني أنا مرتي حاقف الله أنا في سمايا مرحبا جاءنا قلبي وحياة وهم حسب الله أفرحنا بدريمسي مرور بدريمسي كانوا سمايا ninka raggaa si walboo dhagax u yahay mar haddii uu qalbiga laga galo way adagtaasoo u nasto saaxiib haddaa qalbiga aa ka daalan tahay mar walba subaxdii habeenka adoo daalana seexane subaxdiina isla daalkiiya kusoo kacaysaa laakiin daal caadi haddii aad dhahdo maanta waa seexana isla xilligiiba waa daalkuu kaa baabaayaa marka horta aniga waxaan ahay qof youtube-kan oo iskaga beriisiin jiray oo fani ahaana asxaab famil qurux badan walaalo qurux badan aan halkan ku bartay marka waxaa dhacday ilaahay kuma samadiiday anigana waxaa iska ahay Nairobi xilligaa imaanay nin gurigiis iskaga jiro oo dadkana soo dhexgeli jirin mugaa banaan baxow galay markaasaa jecelka julub yareebo ya dhimale waxaan geeri ahayn waa laga kaca walaalkay been ma wallahi ninka ragana waa jab oo soo maraa Jamaal waxaan ku weydiinaa waxay tahay bal xiriirkaas jecel soo ku bilaw saaxiibkay xiriirkayga jecelku wuxuu ku bilowday horta waxaan is jeclaanay gabar Soomaaliyeed ilaa ku deeqay qurux iyo dabeecad iyo intaba si fiican aan isku haystay inay naqanayso midii ilmahay dhalaysa aabahood marka waxa waa gabadhaasna waxay intii joogtay dadka social media ku jiro ee kamid ahayd xilligaas si fiican marka waxaa jiray Soomaal awaad mataqaana oo hadda ka hor qadarkii oo la qabanay si fiican marka waxaa la soo qaatay best youtuber iyo tartan ahaan la soo qaatay bariga Soomaaliya joogtay miya si fiican marka waxaa dhacday ii sheeg aniga youtuber-yaasha ku jiray marka dadka lagu guuleystay kamid ahay si fiican marka kuwii meesha oo hadda Nairobi ila joogan xilligaas qaadeen marka way igu marti qaadeen xalfadoodii dabaaldegooda marka waa iskugu imaanay gabar kamid iyada wax u jisho jirta marka isma dheheen gabadhaas jeclaanaysa marka saaxiib jeedo jecelku kuma tashana marka jeego arinkan horta daa ka weytii Jamaal Jacelo saad isku dhaweeyeen waxa waa asxaab ahaydeen dow marka arinkan maxaa ka ogtahay
والله أنا هرت خوفك بنادنك private life ولا هاي سفيان private life كي سنين أكو احترامتت يكوه بونته حتى هذا وحكي أكتر حتى عادي عادي لكن waxyaabaha qaar oo aniga aan aad u jeclaysanaa waxay tahay qofkii walaalkayga ahaa Jamaal for example markaan kasoo qabano wixii dhan gabadha magaceeda wuu qariyay shakhsiyadeeda wuu qariyay asagoo ilaalinaya sharafka gabadha kuna ixtiraamaya sidoo kale iyadana gabadha arrimaheeda private ka labadooda dhexmaray banaanka ma keenin waayo sidoo asaga sheegay qof marwaa u dhahay laakiin waxa ayaan daraa in hadalka walaalka in wax laga dhex raadiyo in youtuberada si aan habbooneyn oo cilmiga saxaafadda aysan ku habbooneyn sharafka raggana aysan ku qurxooneyn wax uu dhex raadinayo u lifaaqay sharafku wuxuu ku jiraa qofka walaalkaada wuxuu ka xishooday haddaad adiga jeclaysatid inaad wax ka raadisid oo aad leedahay ba asaga saan u dhahay iyadana saanay tiri gabadha tan waa waxaas wax fiican ma ahan waayo qofka walaalka wuxuu u hadlay qaab sarcastic language yani asagoo hadalkii sarbeebaya asagoo hadalkii aan jeclaysan laakiin hadda adduunku waxaa qalad ah qof sawirkiisa inaad soo qaadatid bilaa ixtiraam daro hadda aniga sawirkaysa oo ragmi haddaad igu xadgudbaysid kuma habboon sawirkayga inaad soo qaadatid waa in journalism law markii loo fiiriyo sharciga journalism laakiin waxa qalad ah oo aanan wanaagsanayn rasaq inaa meel xun ka raadisid marka dhalinyarta youtuberka waxyaabaha nooca oo kale waa laga fiican arrinka aan wax ka ogaa waxay tahay marka Jamaal Jabeelo loo waa qof wax walba ila wadaagi jiray si fiican jeclaa wax walba inuu ii sheegto sidaan anigaba ugu sheegi jiray dad isku dhow baa ahaydeen ha xitaa arrimahan shakhsiyadiisa xitaa waa waxyaabo sababay xataa ani asaga inay meel xun naga kala gaarto sidoo qalbigiisa ugu weyneyd arrintan oo jacaylka ha sidii qalbigiisa ugu weyneyd iyo sida anigana u jeclaa mar walba kalaabo si fiican halla qofka hadduu wax jeclaado indhama lahaa la dhahaa ilaa uu dambiga ka soo taabto marka hadda waxaan leeyahay arrinka keliya aan ka ogaa waxay tahay dadka la tuhunsan yahay ama dadka laga shakisan yahay inaysan sal iyo raad ku lahayn gabdho badan oo sawiradooda lasoo qaadanaya arkay gabdho badan oo sawiradooda lagu xadgudbaya arkay arrinkaas aad u malaysiin iyo siduu idinka jiro iyo qofka uu yahayba waa kaaf iyo kala dheeri marka waxaan leeyahay xaq waxaan u leeyahay waxa markaa taagan inaan si guud kaga hadlo laakiin xaq ma u leeyahay wax walaalkayga private u ah inaan public ka dhigo si fiican maya arrinka ragnimada saas waayo okay videogaas sii wadanaynaa sidaa wax ku aragto way adag tahay aada weyn iftiinkana waa qalbiga aada weyn marka waxaa dhacday gabadhii waa muraayadoo kale marka waxaa dhacday gabadhii ilaahay amarkiis meesha isku baranay markaa isku barana kadib waxaa dhacday taleefon markaas xilligaas waxaa haystay taleefon 8 balaasa haystay liibaanna wuxuu watay taleefon ikisoo watay timikuusa camal markaadkiisiyo sawirada ku qaadahay marka sawiradii aan mugdi noqdeen أنا واحد هاي إيد بلاسكيجو أسبوع إيد بلاسكنا وحكوا في عيا بوستي سبرة حلقة سوق في عنا مركو حنا هاي أنا سبرة كقاعدة أي كدن مع الجبل حتى وكقاعدة مركا كقاعدة دليرتي أنا واسوق لا تغني دليرة نبردو وهاي ودردري مركا جبل دي أسبر إذا أكسوق هذا أنا قرت مركا أنا الراديو إذا نسورة سلمرنو صاحب سي إيد وقدره الراديو وايو سي أركايب وحوا إله مركز وحا وكهله قاعده هرابه وكهله يعني كهلد ومركز marka waxa dhacday wiil saaxiibanahnay weydiyo waxaan dhahay heblaayo nabarkeeda ii soo dir oo ii soo diray marka sawirka hada waxaas dhahdaa sawirka toos ugu dirto niyo sheeka dheer mani dhaxmarayso waxa u diray halahana sawirka bis ka jaray wajigeeda halaan leh wixii waa jarjar sawirka sheeka meesha inay ka bilaataan rabaan mugtaas wallahi been ku sheegay sawirka marka u diray kadib wixii dhaha sawirka ma ii soo dhameystirtid si fiican markaas waxa ku fufooday heblaayo hebel waa isku haysatiin maanta isku dhool cadeeyeen ana kaastii geeya way iga weyn yahay aad u cunum luqa jooga waxa isleen horta misbaaxay kulli adiga jecel maybe ina soo martay laga yaaba anigana maybe ina soo maray laga yaaba
wallahi waxyaabaha qofka bini aadanka ah marna ka qoslin kara marna ka xanaajin kara marna ka oysiin kara jecel waa si fiican soomaalida waxay u taqaanaa qofka hadduu jecel la ilmeeyo inuu jilacsan yahay no ninka ragga birta waa ka adag yahay laakiin qalbiga markii laga galo shumaca waa ka jilcan yahay hore u dhalaada si fiican waxyaabaha oo dareenkiisa markaa cabiro markuu gabadha ka sheekeynayo positive-keeda aada u farxaa aada u dhoola cadaynaa aada u riyaaqa muuqaalka dhexdiisa markii waxyaabaha uusan jeclaysan muuqaalka ama qisada markuu ka sheekeynayn waa uu murugoona waana u ilmeyna waxaa taa tusaale kugu filan marka gabadha markuu soo xasuusanayo positive-keeda waa wax mar walba sababa inuusan qofka iloobin waayo qofka wanaagiisa markaa xasuusta laakiin qofka hadduu qof xun ahaa dabeecad xumaa noloshaada shar ku ahaa xitaa waxaa dhibsanaya xasuustiisa dhibsanaya sooma waxaa aaminsanahay meel ma soo fariisanahay ma ka sheekeyn lahayn waxaa aan ku intii weligaa horta jecel wallaahi horta ani ahaanteyda waxa waaye jacayl may gelin jacayl may gelin maxaa bateri loo mataa bateri low ma ihi laakiin jacaylka wuu kala yahay waxaa jira jacayl like waxa waa la hilmaami karin oo qofkaas muddo ah wada socotaan oo kale laakiin ani jacaylkayga wax dhihi karaa maybe bilow ahay 2 bilood wallaahi jacaylkayga ugu dheer maybe wax dhihi karaa 2 bilood waxaasoo ahaa ma fahamtay marka waxa waaye I hope one day inaa wax jeclaado kasooyinka jacaylka wallaahi waa jeclaa waa akhristaa mar walba inaa wax jeclaata ma rabtaa qalbigaada ha jeclaanaada qalbigaada qaraabada ka saar adeegooda ka saar toorta ka dhig maya wallaahi bilaa adeega ku jira okay su-aashani waa weydiisay adaa kuu soo wareejinaya sheek ahaan weligaa jacayl dhab ah ma soo martay ama xasuus ama dhibaato aad la soo martay wallaahi jacayl dhab waa isoo maray okay before social media ah laakiin social media soo galeen okay waa soo maray adiga waxaan dhihi karaa 5 sano camal waa dhihi karaa 5 sano jaamacada akhrinaysa walaalo 5 sano waxaa sameynayseen la naxariista leen leh u ducayna waa aamusay wixii ka dambeeyay laakiin waxay iska ahayd wax 1 sano 6 bilood 1 bilood ma faham dooqa wuxuu kaa lumaa markuu qalbiga kaa lumo dooqaada wuxuu qurxoonaanaa markuu qalbigaada iftiin yar aad ka dhex arkaysid marka qalbiga duu mar dam dhaho waxaa ku ducaysana ilaahu too ifis bul iisiisa la iraadi too ku dhex rafat ma rabo maya saa sheegto waaye ilaahay waxa waaye okay baa sii wadanayna waxaa murugaa gashee maya markaa igu dhahday way dhimatay markaa dhahday walaa caloosha ay xanuuntay marka ilaahu naxariisto marka qisadaas sii wadanaynaa culays pressure ku markii gaagiya ku dul gambaday waxaa dhacday ilaahay ku tubaraaco ku noqday tubaraaco uu noqday doodiyo ma yaani sheeg wada sheekeysi waxaas dhaay sabrida hadda hal mar wada diri lahay meeshaas ay ku ekaaleed hafaafiya u dirdiray mar halahana u diray mar halahana waa foodiyay adinta jatinkiina uu socdo kadib waxaa dhacday annagoo caadi statuskaas iyo whatsappkaas iskala socono inaan anay iida si saaxiibtinimo aan ku wada sheekeysano ma aaminaysaa jee saaxiibkeeyo haddii markii ugu horeysay qofkii ugu horreeyay bibi dhaho iida ahayd markaasa waxaan dhahay niyo cunug mulug mihimaa gadiis yani qaybta jaceylka dhanaa fikra ka ahayd intaas dhakalta jeeg dhibadnida intaan waxaan ku daraa makase waxaa ku daraa waxaa waaye qofka bini aadanka wuxuu talent u leeyahay uu wax ku yahay si fiican adiga waxaa talent u leedahay hadday tahay dhakhtarnimo ayaad kusoo bixaysaa si fiican marka dhalinyarada youtuberada oo reactionada bixiya anoonan samaynaynin personality attack qofka shakhsiyadiisa ku xadgudbaynin oo ixtiraam badan u ahay waxaan leeyahay youtuberada qaar waxaa adiga ku wanaagsantihiin aad talent ku leedihiin haddaad ku wanaagsan tahay reactionka haddaad ku wanaagsan tahay ruwaayad jirista haddaad ku wanaagsan tahay bulshada inaad u faa'iidaysatid waxa ayaa talent ku leedahay marka adoo talentigaada iyo reaction inaad bixisid ama ruwaayado qurux badan aad heshid ma kuga habboona waxyaabo oo maaragtay private law ah ama wax private inaad soo qodqodid wax aan nacfi kuugu jirin danna kuugu jirin inaad rasaq ka raadisid marka qof walba advice aan youtuberada u diraa waxaa wax ku tahay dib ugu laawo
ama sii wado Xuska wana ogaataa sii wado Si fiican. si positionka shalay xaq u lahayd aad ugu soo laabatay Aad iyo aad. laakiin waxaadan xaq u lahayn waxaadan ku habbooneyn haddaad maalin walba isku cariirisid waxaa imaanaysaa shakhsiyadaada waxaysan mudnayn inay bulshada ka aragto si fiican marka isku day waxaa wax ku tahay inaad bushi garaysid aad sii wadid aad waa tala youtuberada aan siina marka walaalkayga adigana waxaa leeyahay waxaa wax ku tahay naftirkaada reactionka waaye reactionkaada sii wada intaan dileed iska dhe soo laabade intaan jacaylka dileed iska dhe okay intaasna kabta marka waxaa dhacday waa isla sheekeysanay markii ugu horreysay waa xasuustaa habeenkii ugu horreeyey saan Nairobi u imaado waa markii ugu horreysay aan dhafar barta haddana dhafarkan dabeecaddeedu noqday si fiican oo hal saac subaxnimo aan qoraxda arkay hadalkaas wuu ii taabtay itaabtaa jecel ku والله بلا هذا الخير له واي يعني وحو دحي maxay ahayd inta hore dhafri waxaas ma aqoon maalinta qoftaas bartay oo jacaylkaas ay yeeshay ilaa hadda dhafriku way daba socdaan ma binaadanka waxay ku qurxoon tahay marka say wallahi ani ma dhaawacyada nolosha aan ka soo maray dhanka nolosha dhanka jacaylka dhanka duruufaha si fiican wallahi billahi ma u malaynayo shakhsi maanta youtuber ama shakhsi bulshada saameyn ku leh nolosha u adag inuu soo maray haddana hal mid aan kaga gudbi midda keliya aan kaga gudbiya waxay tahay oo dhalinyartana advice ugu daranayo waxaa heli kartid cun waxaadan heli karin kasoo qaad waxaadan u baahnayn yani maanta haddaad caano heli kartid cab ku qanacsanow laakiin haddaad u baahan tahay pizza oo aadan awoodinna kasoo qaad waxaysan naftaada u baanin I don't need mu baanin caanaha ay muhiimsan yani markay duruuf timaado markay jecel timaadana qofkii qiimahaada garan waayo ama qalbigaada garan waayo waxaa naftaada lagu raaligeliyaa in naftaada mashquulisid haddaad naftaada mashquulisid shakhsiga dunida ugu jeclayd way fududaanaysaa inaad iloodid waayo bini aadam fiir cunug yarka markuu dhasho isla markii muxuu jecel yahay markuu koro oo weynaado mala celin kara ilmaha markin intuu orda korkiisa energy badanaa ku jiro waayo energyga meeluu ku bixiyo rabaa laakiin adoo qof weynaa energyga haddaad naftaada ku keedisid aadan ka faa'iidaysan oo aad jiifatid hadhow maxay dhalinaysaa marka inaad naftaada ku mashquulsid qofka marka murugtiisa makaa baxaysa laakiin energyga haddaad ka faa'iidaysid aad ismashquulisid sida adduunkaas kale ay gashid waxaa waaye wax walba ilooysa marka naftaada mashquul wax walba ilooy aad yaa may horta ninka ragga ah waa ninka soo mara jab ma fahamtay waana kii ka gabta ma fahamtay marka naagtan maxaa le waa tii soo marta halmid oo ka kabata aniga ku shactiraysan jeegaya marka asxaabay qisada queen one month ya mrs one bill madena mrs one bill waxaa ii reebata hadda ma laha bis ori dadkaas igu ogaadeen marka asxaabay qisada maxay jamaal jecel oo meeshan aan ku ekaysiinaynaa waxa waaye ninka ragga jabu soo maraa uuna ka kabtaa marka waxaa leeyahay waxba u joojin keep going noloshaada wado maasha allah welcome back oo kale youtube-kana kusoo dhawo maasha allah gabar saa qurux badanaa jamaal oo adduunku nool hasho hadday tagta halkala nool marka soo laaba ku leenahay asxaabtana waxa waa naga codsanaynaa subscribe noo saartaan 100k waxyar noogu dhimo insha allah muuqaalo cusubna waa soo wadnaa oo arki doontaan asxaabta waxaa idin leeyahay like share comment subscribe peace